galab wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba wararkani galabnimo inaad ka daawataan channeladeena YouTube-ka sirta wararka iyo Dabaasha TV waa axad waa 12 March 2023 wararkani galabnimona qodobada aad ku daawan doontaan waxa qaybka afar qodob oo khasaaro ku ah Soomaaliland oo ay ka dhaxashay dagaalkii Laascaanood ee muddada bilka ka soconaya halkaasi haddaba afartaani qodob ee khasaaro ku ah Soomaaliland mustaqbalka madaxweyne Muuse Biixi oo halis galayay xaqiiqooyin ku saabsan ayaan ku soo gudbin doonaa sidoo kale Soomaaliland oo sameynaysa isku daygii ugu dambeeyay oo ay rabtay inay ku xaqiijiso inay ku qabsato magaalada Laascaanood iyo Soomaaliland oo dhaqaaq military xoog leh ka wada duleedka magaalada Laascaanood isku dayga ah qabsashada Laascaanood Soomaaliland afartaani qodob ee khasaaraha ku ah Soomaaliland ee ka dhaxashay dagaalkii Laascaanood iyo xaqiiqooyin ka qarsanayaan galabta ku soo koobi doonaa wararka inta ka baxsan waxa qaybka macluumaadkii ugu dambeeyay dagaalkii xoogana ee khasaaraha badan dhaliyay oo dhaxay kooxda Daesh iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamaya gobolka Bari faahfaahinta dagaalkaas ayaan ku soo gudbin doonaa sidoo kale waxa kale qaybka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo go'aan rasmi ah ka soo saaray doorashada Puntland iyo waqtiga ay dhici doonto waxa kale qaybka Al-Shabaab oo baahiyay muuqaal nin ajnabi ahaa oo ay sheegeen inuu isku qarxiyay qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya ninkan ajnabiga halkuu isku qarxiyay howlgalkaas halkuu ka dhacay iyo macluumaad ayaan ku soo gudbin doonaa madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo gaaray heshiis nooc cusub dhammaan qodobadan iyo kuwa kale aan ku faahfaahin doonaa wararkeena galabnimo qayb ka noqon daawadayaasheena sida maalinlaha ah ugu xiran channeladeena YouTube-ka sirta wararka iyo Dabaasha TV galab wanaagsan soo dhawaada aan ku bilaabo Laascaanood intaan eegin afarta qodob ee khasaaraha ku ah Soomaaliland ee mustaqbalka madaxweyne Muuse Biixi intaan ku soo koobin marka hore aan ku dulmaro xaaladda iyo sida ay hadda tahay galabta xaaladda Laascaanood xogaa xasiloon ayaa laga soo sheegay in kastoo saakidii hore madaafiic laga maqlay magaalada oo ay madaafiic dhacayeen haddana laakiin galabta xaalad xasiloon ayaa ka jirta magaalada Laascaanood xasiloonida galabta ka jirta Laascaanood ayaa sidoo badan ku qeexan inay tahay mid daqiiqad walba isbedeli karto dagaalna uu qarxi karo dhinaca kale Soomaaliland ayaa wada isku daygii ugu dambeeyay oo ay rabto inay ku qabsato gacan ku haynta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Soomaaliland ayaa la sheegay in 24 saac ugu dambeeyay ciidamadeedii ugu xoogana hub iyo ugu cuslaa ay geysay saldhigga military ee Gooja Cadde waxaana la sheegay in ciidanka Soomaaliland ay hadda isballaarin ay ka sameeyeen aagaga difaaca waxaana la sheegay in Soomaaliland maalmaha nagu soo aadan Isniinta Talaadada ilaa Arbacada ay qorsheynayso inay qaado mid ka mid ah duulaanadii ugu cuslaa ay rabto in mar kale ku xaqiijiso qabsashada magaalada Laascaanood laakiin Laascaanood iyo dadka ku nool ee simada ah ee waliba ciidamada dagaalamaya jabhadda SSC ayaa ina helay taageero hagar la'aan taageero aad u weyn oo la qarin karin taageeradaas waxay ka heleen beelaha dega Puntland oo dhamaantoodba kaga soo gurmaray gobolada Bari Nugaal iyo waliba sidoo kale qaybo ka mid ah gobolkaas Mudug oo gaalkacyo ay ku jirto gurmadida xoogan ee soo gaaray jabhadda SSC ee Laascaanood ayaa ka dhignaan karta in Soomaaliland ay mar kale ku qasaari karto isku daygeedii ah inay ka qabsato Laascaanood dhaqdhaqaaqa military xiisad dagaal ayaa wali Laascaanood ka taagan waqti walbana magaaladaasi dagaal ayaa ka dhici kara dhinaca kale afar qodob ayaan galabta ku soo koobi doonaa oo ku xaqiijinaya khasaaraha Soomaaliland ay kala kulantay dagaalka Laascaanood wuxuuna u muuqdaa mid Soomaaliland xitaa khasaarahaas aysan ka soo kabsan karin bartamihii bishii December ee sanadkii aan ka soo gudubnay 2022 guud ahaanba gobolka Sool wuxuu ahaa gobol ay maamuleysay Soomaaliland oo ay gacanta ugu jirtay laakiin bishii January rabshado dhacay dilal ka dhacay magaaladaasi Febraayo dagaal ay qarxeen waxay sababtay in Soomaaliland maanta aysan gacanta ku haynin deegaanada iyo degmooyinka ka kooban yahay gobolka Sool ayadoo magaalada madaxda gobolkaas Laascaanood ay ka joogto duleedka magaalada garahan saldhigga military ee Gooja Cadde halkaas oo ciidanka Soomaaliland ay ku sugiyihiin inta kale Soomaaliland oo loogu itaal roonaaday dhammaan dagaaladii dhacay waxayna Soomaaliland hadda u muuqataa in ay qirsan tahay in guud ahaanba gobolka Sool gacantoodu ka baxay laba Soomaaliland waxay sameysay afar isku day ay u rabtay inay ku weerarto Laascaanood si ay ciidankeeda dib u qabsadaan laakiin afartii mar ay isku dayday qabsashada Laascaanood ayaan u shaqeyn Soomaaliland marka la eego afar mar oo isku daya oo duulaankii ugu weyn ay soo qaaday Soomaaliland meeshan u suurtagelin inay soo dhaafto saldhigga military Gooja Cadde tani waxay dhaq khasaare kala weyn in Soomaaliland ay lumiso magaalooyin waaweyn oo Tukaraq Laascaanood iyo deegaano kale oo boocam ay ku jirto ayaa ka dhigan in guud ahaanba gobolka Sool hadda Soomaaliland ay macsalaameynayso
saddex Somaliland dhanka dhaqaalaha ah ayay haddana u muuqataa in khasaaro weyn ka soo gaaray marka la eego Somaliland dhaqaalaha kaga baxay dagaalkan wuxuu dhaqaalihii ugu badnaa khasaare ahaan dhaqaale weyn ayaa soo gaaray waxaase intaasi ugu sii daranba wadamada qaarkood ee Somaliland dhaqaalaha siin jiray oo guud ahaan hadda dhaqaalihii joojiyay dowladda Britain oo Somaliland taageeri jirtay dhanka dhaqaalaha iyo midka military oo ay bixin jirtay mushaaraadka ciidanka iyo waliba saanada military ee hubka ee Somaliland ay heli jirtay ayay Britain ku dhawaaqday inay joojisay maadaama Somaliland ay ku lug yeelatay xasuuq dad rayid ah oo loo geysto ka dhacay Laascaanood waxaa salka shardi lagu xiray qaybka in Muuse Biixi oo ciidankiisu ka soo saaray Laascaanood garaashan uu ka bixiyay arintaas laakiin Muuse ayaa ka dhagaadeegay wuxuuna ahaa qodob kale oo Somaliland ay khasaaro xal ka soo gaaray dhaqaalihii ay ka heli jirtay beesha caalamka oo hadda istaagay in dhaqaalihii gudaha aan shaqayn qodobka afraad wax soo saarka gudaha ee dhanka dhaqaalaha isla markaan eegno dekada ugu weyn Somaliland dhaqaalaha ka heshay wuxuu Berbera waxa ka soo degaya cuntooyin kala duwan oo loo iibgeynayay qaybo kamid ah gobolada Sool Sanaag iyo waliba sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga dhammaanba way istaageen hadda markii tani dagaalada ay bilowdeen waxaana la sheegay in cuntooyinka kala duwan halkaas dekada Berbera laga soo degi jiray ay u wareegeen dekada Boosaaso tanina waxay ahayd dhibaato kale oo Somaliland xoog leh soo gaartay dhanka dhaqaalaha ah ugu dambeyn madaxweyne Muuse Biixi ayaa hadda wajihi kara cunaqabateen dhanka dhaqaalaha ah mid safar haduu ku adeego sii socoshada dagaalka madaxweyne Muuse Biixi ma haysto fursad weyn oo hadda uu ku dhiiran karo inuu sii wado dagaalka Laascaanood marka la eego cadaadiska xoogga leh ee ka imaanaya dalalka reer galbeedka doorka dowladda Itoobiya oo qarsooneen iyo waliba madaxweynaha oo qudhiisa loogu yeeray wadanka Itoobiya inuu yimaado madaxweyne Muuse Biixi afartaas qodob ayaan ku soo koobaynaa oo dagaalkii Laascaanood uu kala kulmay waana khasaaraha ugu weyn isku soo duub mustaqbalka Somaliland ayaa saxada u muuqda mid halis weyn ku jira warbixinadeena kale aan ku faahfaahin doonaa macluumaadkan iyo waxyaabaha kale ka soo kordha wararkii ugu dambeeyay dagaalka u dhaxeeya kooxaha Daesh iyo Al-Shabaab ayaan eegnaa oo xoogeystay oo ka soconaya gobolka Bari warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya Maleeshiya kamid ah kooxda Daesh iyo waliba sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo hadda ku dagaalamaya qaybo kamid ah gobolkaasi Bari oo isku horfadhiya dagaalku mid xoogan ayaa qarxay xalay wuxuuna soo gaaray ilaa 6 duhurnimo ama 12 duhurnimo ee maanta waxaana la soo sheegayaa in Al-Shabaab iyo Daesh isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan oo la maqlayo dhawaqa madaafiic culus dhinacyada isku garaacayaan wararka ayaa intaas waxay ku direen dagaalka xoogiisa duhurnimadii maanta uu ka soconayay ayga lagu magacaabo Toogaga Damale iyo waliba Quraacade oo hoostaga deegaanka Jecel waxaase la soo sheegay waana dhulka buuraha dhacay gobolkaasi Bari sidoo kale meelaha laga dareemayo dhaqdhaqaaqa military saasanta dagaal waxa qaybka Toogaga biyaha ay maraan iyo waliba sidoo kale dhulka buuraha ah ee ku yaala aaga magaalada Beledweyne halkaas oo ay ka taagan tahay xaalad cakiran oo aad u xoogan dadka deegaanka ayaana ku soo warinaya in xaalad cabsi ay dareemayaan lama oga khasaaraha rasmiga ay soo gaaray dhinacyadan waxaase hawada laga maqlayaa dareenka hub culus qadka isgaarsiinta deegaankaas ayaa aad u liidata shabaab iyo Daesh ayaan halkaas ku dagaalamaya dhulka buuraha ah dhinaca kale ma jirto wax hadal ka soo baxay dowlad goboleedka Puntland ee ku saabsan dagaalka ka dhex qarxay Puntland waa dagaalka ka dhex qarxay shabaab iyo Daesh ee gobolka Bari dhanka buuraha ka soconaya xaaladda ayaa soo wali u muuqata mid kacsan dhaqdhaqaaqiyo isku soo horjeedayana laga dareemayaa deegaanka dhanka buuraha dhacay gobolka Bari xiisada u dhaxaysa labada dhinac ayaa maalmihii ugu dambeeyay si xoogeystay 6 cisho ugu dambeeyana waxa la sheegay in hub aruursi ay wadeen dhinacyadan Al-Shabaab iyo Daesh labaduba waxay ku xoogan gobolka Bari mararka qaarna ayaga ayaa hadda isdagaalada hadda dagaalkooda uu dhacayo kale dhinaca kale kooxda Al-Shabaab galabta waxay baahisay muuqaalka nin ajnabi ah oo isku qarxiyay gudaha Soomaaliya kooxda Al-Shabaab ayaa haatan baahisay muuqaallo laga duubay nin ajnabi ah oo hore war rasmi kaga fuliyay gudaha Soomaaliya gaar ahaan saldhigga ciidanka oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfurta Soomaaliya Al-Shabaab ayaa magaca ninkan ku sheegtay Ramada Mawani kaasoo bishii Abriil 2021 isku qarxiyay saldhigga Bariire oo ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ee dowladda weerarkan wuxuu dhacay 2 sano kahor sida kooxda Al-Shabaab warkeeda u dhigtay
magaca afgarashada ninkan wuxuu ahaa Cabdullaahi Al-Muhaajiri wuxuuna la sheegay inuu ka soo jiray wadankaasi Kenya muuqaalkii uu duubay 2 sano ka hor ayay kooxda hadda sii deysay ninkan ayaa sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa dadka tababarka sare ku soo qaatay gudaha Soomaaliya isla markaana ka dagaalamay deegaano badan oo dhacay Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed wararkiis midaaminta uu fuliyay ninkan ayaa hore waxa weerarka kadib dagaal toos ah oo dhacay al-shabaab xilligaas ay ku qaadeen xeerada ciidanka militariga dawladda Soomaaliya ku lahayn deegaanka Bariire waxaana ka dhacay khasaaro dhimasho dhaawac al-shabaab ayaa aalaab waxa ay baahisaa muuqaalada ragga fuliya weeraradan iyo waliba sidoo kale dhaqanka al-shabaab ayaa in 24 saac kadib ay baahiso xogta qofka isqarxiyay laakiin 2 sano kadib ay ninkan Kenyaatiga ay hadda kooxdu baahisay balse militariga Soomaaliya ee dalka ayaa sheegaya in ninkan la toogtay uu saraxay nin isqarxiyay baahinta muuqaalkan ayaa ku soo aaday xilli al-shabaab hadda laga qabsaday dhul ballaaran oo dhaca koonfurta Soomaaliya al-shabaab ayaa hore u shaacisay weeraro ka dhacay xarunta gobolka Banaadir 22 Janaayo 2023 kaas ay fuliyeen nin 4 qof oo mid ahaa nin ajnabi ah oo dhashay wadanka Kenya kaas oo la sheegay 2 bishii May waa 2 bishii May ee sanadkii 2022 uu sidoo kale ceel baraf nin kale oo isla ajnabi ah weerar ka fuliyay sida kooxda al-shabaab sheegtay wuxuuna ahaa nin kale oo Kenyan u dhashay si kastaba al-shabaab ayaa inta badan sheegtaa weerarada markay dhacaan ajaanibta qarxiyada qaybta ka ama fulisa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Qudus Wuur ayuu ka soo saaray doorashada Puntland ka dhici doonto ay waqtiga ay dhici doonto madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta go'aan culus ka soo saaray oo la xiriirta doorasho qof cod ah ee golaha deegaanka ee ka dhacda maamulkaas Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo saaray wareegto wuxuuna ku aastiyay xilliga ay dhacayso doorashada golaha deegaanka ee Puntland taas oo laga dhigay maalin Khamiis 25 bisha shanaad 2023 oo ka dhigan in 2 bil kadib doorashada golaha deegaanka ay bilaaban doonto waxaa si rasmi loo aastiyay taariikhda doorashada golaha deegaanka ee dowlad goboleedka Puntland oo laga dhigay Khamiis 25 bisha shanaad sida lagu xuso wareegtada golaha go'aanka madaxweynaha Puntland ayaa daba socda warqadii dhawaan ka soo baxday guddiga ku meel gaarka doorashooyinka maamulkaasi kuwaas oo sheegay in maalinta doorashada dhici doonto la shaacin doono haddaba waxaan loo ogeyn qayladhaanta ka imaan doonta go'aankan sida muuqata Saciidani bishii May ee soo aadan ayuu qorsheeyay in doorashada golaha deegaanka ay dhacdo xilli muddo-xileedkiisu gabagaba ay marayso ayna ka harsan tahay waqtigaasi wax ka yar 8 bil oo xafiiska uu sii joogi doono waxaa loo ogeyn sidoo isku qaban karo waqtigiisa dhamaad ah in doorasho qof cod ah waqtigan uu qabto wagaag daawadayaal galab wanaagsan wararkii galabnimo ayaan halkan ku soo koobina qodobadan wixii kale ku soo kordha wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa nabadgelyo